waxaan ku suganahay xaafadda Makaroor ee magaalada Wajeer waxaa gadaashayda ah dugsi qur'aan oo ay wax ka bartaan in ka badan 200 oo caruur ah caruurtani oo isugu jiraan caruur qoysas danyar ah ka dhashay kuwa agooma ah oo halkani lagu barayo laguna xifdisiinayo quraanka kariimka balse arinta yaabka leh ayaa waxa ay tahay qarnigan la joogo ama xilligan la joogo magaalo dhexdeedana la joogo in caruur yar yar oo quraanka baranayaan ay ku hoos bartaan geed iyadoo loo heli karo in loo helo guryo dhagax ah ama qolol dhagax in loo dhiso caruurtani wax magaratada ah la barayo diinta islaamka barashada ee quraanka kariimka ayaa waxa ay quraanka ku hoos bartaan qoraxdani aad arkaysaan haddii uu roob imaadana ma helo ama caruurtani ma helaan meel ay ka galaan waxaan soo booqanay dugsigani si aan idin la soo wadaagno xaaladda ay caruurtan yar yar ay ku bartaan quraanka kariimka iyo culumta kale ee islaamka فعنتين دكسين كينا بيا هاي محاج عشان إن الذين قبته يا إن دكسية الذين دسوا دكسية هدي الذين دسوا محسمين يسين قرآن كواسي برنيسين أماد برنويسين ما له هو هاي دكسية الذين دسا دكسية دولك وقف ديو أما دولك وباهي هاي إن لو دسا إسقى ملهان waxaa loo baahan yahay in loo iibiyo sidoo kalena loo dhiso dhul lagu qiyaasay 8,000 oo dollarka Mareykanka ama u dhiganta 800 oo lacagta dalkani Kenya waa lacag aad u yar marka aynu isugu wada tagno bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahi mahmad iskale subhanahu wa ta'ala ummad islaam ee naga dhigay waxaan joognaa galabta dugsi taxfiid ah oo ku magacaaban Aslayn oo ku yaalo xaafadda Makaroor madiinada Wajeer magaalada Wajeer alxamdulillah ilaahay iskala meeshan hortayda waxa ka muuqda ilmo yar yar oo rag iyo dumar bala wax baranayo ma sha Allah codkoodana aad u macaan yahay quraanka kariimka baranayo ilaahay ma mahadinayna subhanahu wa ta'ala ilmaha yar yar waxaan arkaynaa dadka walaalaha aan u sheegaynaa meesha ay wax ku baranayaan waa meel geed hoostiisa ah oo oraxda iyo roobka iyo dabeelaha ilmaha yar way macnaha ay u banaan yihiin oo meel dhisan oo hadda ama roob ay ka galaan ama orax ay ka hirgalaan ilmahan ma haystaano dadka marka walaalaha dhammaan oo islaamka ah waxaad indhihiina ku arkaysaan waa wax kulli muuqdo oo arkaysaan waxa aan sheegayno oo galabta halkaan isku imaanay marka dalabkeena ayaa wuxuu yahay walaalayaal ilmahan sidii loogu heli lahaa dadka faala qaado oo meel ay wax ku bartaan dhulkan hadda ay joogaan meel yar bay ku leeyihiin waa dhul dad ay iska leeyihiin weeyaan oo beec lagu rabo dadka dugsiga hadda maanta gacanta ku hayo waalidiinta ama macallimiintana dad hadda maanta agoodaas ama keli karo ma aha dhulka gadi karo marka codsigeena marka maanta wuxuu yahay ikhwaani fillah ilaahay idan barakeeyo in ilmaha aan u helno dadka faala qaado ilmaha noocyo badan bay ka kooban yihiin ilmaha tabar aan lahayn oo iska tabar yar waalidkii uu tabar yar yahay qaarkood ay laga yaabo inay agoomo ay yihiin marka waxaan u baahanahay ka faala qaad dhulka ilmaha dad u gadaan doonayna haddana qolal ugu dhiso galaase ugu dhiso nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ibn aadanka hadduu dhinto camalkiisu dhanba waa go'aya ilaa min 3 sadaqad jaari iyo waladun yantaficu bihi iyo waxa weeyaan cilmun yantaficu bihi علمي ينتفع ورمرك ماشان وميل مانتا نينكي وحيسا قشدو أدوني آخرب أوسن كشلايني دونن إلهي إذن بركايو مركا ولا ليال دادك محسنين تا عدسي قاسان قدرينا إن ماشا أي واحنا غلا قبطان هادانا دول أيا لو باهن يهي جيد كان هوس جوغنا نفتو دي كودما علمه وقت كستا أيا كبحا لديه كرا مع ذلك قرح دي أيا ديرات أسيئه روبك أيا ديرات أسيئه waxyaalaha murugta waxay ka mid tahay markaan oo lala murugo walaalayaal diintan islaamka
meelaha ay ka soo burqanaysa waxaa waaye dugsiga waay. ninka sheekha dadka xoolaha dhaxalshiiya dugsi ayuu soo maray. ninka bilcaamaha dadka isku nikaaxa rag iyo dumarku isku nikaaxa dugsi ayuu ka soo baxay. maxaan ku dhahaa ninka khudbada akhrinayo dugsi ayuu ka soo baxay. meelihii dugsiyaalka ay ku yeeleenna saan u jeedno waa u yeelaan say u yeelaan. waxaa codsi oon diraynaa ilaahay ha idan barakeeye annaka oo ka mid maxaan ku dhahaa culammada magaalada Wajeer. dugsigan waa in dhul loo hela. dhulkaas markay ugu yaraan ay taho hadda liid aad noqdo lacag 1 milyan iyo ka badan ayaa ku baxaysa, leanna magaaladu waa weynaatay waana raasimaal. guryahan hadda gaarasha naga jira waa laga tegayaa, laakiin meeshaan haddii is wax ku darsata xadiidka hadda uu noo akhrinayo sheekh aadam, idaa maata ibnu aadam inqadaca camaluh ilaa min 3 sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bih aw waladin saalixin yadcuu lah aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam. ruuxu bini aadamka hadduu dhinta camalkiisa wuu go'aya ilaa 3 shay. markaad nooleed 3 shay haddaad ka shaqaysay adigoo qabriga jooga ayaas qaadanaysa ajirkaas. sadaqa jaariya, dhulkan ayaad dugsigu u gaday, masaajid ayaad dhul u gaday, madaraso ayaad dhul u gaday. waa midda hadda loo baahan yahay walaalayaal. adduunyadan waa 2 maalmood waa laga tegayaa, laakiin meeshii ilmaha muslimiinta ay ka soo baxayeen islaamka maxaan ku dhaha uu ku ziyaadayey maanta way baahan tahay. say u taallana waan u jeednaa. waxaan rabnaa markaan codsi in dugsigan dhul loo gada muslimiinta meel ay joogaanba adduunka. waxaan ka codsanaynaa dugsigan inuu dhul hela. waqti roob ayaa bilowday, haddaad roob imaado waa la kala yaacaya, dabayl hadday imaado waa la kala yaacaya, qorrax hadday imaado waa la kala tegaya. goorma wax la baranaya markaan in dhul la hela haddana dhismo la hela ayaa loo baahan yahay walaalayaal. saa daraaddeed inaan kusii dheeraado ma rabay. waxaa codsi ohan wadnaa dugsigan inaad dhul aas hela haddana loo dhisa meel loola soo jir lama aqaana. waa sadaqa jaariya, adiga ayay ku anfaci, cidda ayay anfaci, ummadda islaamka ayay anfaci. ilmahan meesha ka soo baxayeenna waa ilmihii biri ummadda hogaamin lahaayeen ee khayrku ku hagi lahaayeen ee la sugi haaya. dadka odayaasha ani aan maxaan ku dhaha ka mid ahay waa gabal sii dhicahay sooma. ilmihii waxa in la bara meeshii waxa ka baranayeen la tayaynaya. markaan meeshii waxa ka baranayeen ayaa maal la gelinaya. haddii la weeya waxaa dhici doonta wax soo saar ayaa la weynaya. waxaa laydinka codsanayaa dhammaan inta khayrka jecel ee muxsiniinta ah in aad soo caawisaan dugsigan qur-aanka kariimka lagu baraya carruur kor u dhaafaysa 200 oo weliba geed hoostiisa wax ku baranayaan.